malaynayaa waxa weeye Puntland waxa weeye de waa garanaynaa waa hooyadii Soomaaliya waa maamul goboleedkii ugu horeeyay waa maamul goboleed la dhiso oo Puntland ka hirgala si toos uga hirgala marka laga reebo kuwa Soomaaliland sheegtay oo iyagu dawladda isku magacaabay marka waxa weeye waa garanaynaa qiimaha iyo maartay sharafta ay Puntland Soomaaliya ka mudan tahay sida daraadeed madaxweynayaal badan baa soo maray mid walba si sharaf leh uu kaga tagay wax badanna waa ka soo qabtay laakiin hadda madaxweynaha hadda haysta Puntland dhibaato badan buu ka abuuray dadkii buu kala geeyay arrimo marka qodobo halkan baan ku soo qorayaa qodobadaas oo kala ah inta ma garanaysaa sida uu odagu ugu feelgaroobay arrimihii ka dhacay Puntland waa gartay qodobadaas aad ku eedeynayso ku feelgaroobay maxaa kamid ah oo ku fashilmay Saciid Cabdullaahi Dani horta waxa kamid ah markii koowaad wuxuu ku feelgaroobay baarlamaankii isaga doortay buu intuu qaatay gudoomiyihii isaga doortay iyo kuwii u codeeyay isla markiiba iyadoo wax yarba dawladda aysan dhisnayn buu waxaa qaba in yeeriya kabacdina way diideen gudoomiyihii baarlamaanka isagu doortay labadoodii arrintii waa ka dhex dhacday xal meeshuu ka raadin lahaa heer wuxuu gaaray xabad intuu qaatay oo magaalada madaxda Puntland dhexdeeda xabad ka bilaabay fiidkii waa la ogaa baarlamaankii buu qabsaday dhibaato ka dhacday gudoomiyihii baarlamaanka halka waa laga cararay dhibasho iyo dhaawac halka ka dhacay hore waxa Puntland uga dhicin bay ahayd 8 xildhibaan oo aan waxba dhimin waxa laga caaysay baarlamaanka si toos looga saaray oo sharci darro lagu caaysay oo ku wiiri weeyay wax aan qaadan mayno halkii koowaad wuxuu noqday inay dadkii doortay iyo baarlamaanka dhexdiisa inuu xabad ka bilaabo magaalada Puntland qodobka labaad wuxuu yahay 3 sano oo tagay wuxuu beerdareeyay inuu dawladda federaalka si toos ula shaqeeyo taas oo aanu weynay mashaariicdii aanu ku lahayn dawladda federaalka isagoo arrintiisa mashquul ku noqday dawladda federaalka inuu arrimaheeda ka sheekeeyo ama mucaaradadeeda ka sheekeeyo ama meel walba Puntland ilaa way deeqihii ay ku lahayd si ciidamada wax walba aan naga soo gaarin dawladda federaalka sababta keentayna isagu uu sababay weey taasoo waxa weeye mashquul uu ku noqday aan isleenahay dawladda federaalku hadda xaqiimeeno ka badan bay qaban lahayd wax hadda ay qabatay dad isaga lamida iyo kuwa kale ayaa inta lagu haystay ay ka shaqeyn waayeen taasna wuu ku feelgaroobay oo anaga reer Puntland wax mashaariic ah oo dhexbaasano iyo bilaha anaga naga soo gaaray ma jiraan ciidamada loo tababaray ma jiraan intaasoo arrimood isagaan sababta asagaas kale waa gartay waa qodobka labaad aad ku eedeynayso qodobka labaad aan ku eedeynayo qodobka saddexaad wuxuu yahay amnigii Puntland buu ku fashilmay wuxuu ugu fashilmay ciidan Puntland oo difaac ku jira iyo ciidan Puntland oo difaac ku jira buu wuxuu keenay magaalada Boosaaso aan waliga dagaal ka dhicin inuu ku weeraro laba ciidan oo buurta ku wada jira oo difaac ku wada jira oo isku mid oo isagu labadaba uu ka yahay madaxweyne ayuu wuxuu yiri hal is weeraro dhibasha ka dhacday dhaawac baa ka dhacay qax baa ka dhacay dadkaas wali Boosaaso lagama qaxin waa nabadda magaaladii nabadda Soomaaliya la oran karaa Soomaaliya oo dhan markii la qabsaday oo Soomaaliya civil war ka dhacay oo dhibaato ka dhacday oo dadkii Turkaas laayeen oo Sokeeyis laayeen magaaladii loo soo qaxay oo Soomaali u soo qaxday bay wali qax kama dhicin ma iyaguna xabad ay ka rideen isagu ku jiro oo urur la oran jiray Al-Ittixaad iyaguna ay xabadeen maantaasna xisbigii weeraray oo dhibaatada u geystay ku jiro isaguna waagar waxba ka dhacay dhibasha ka dhacday shacab baa la laayay arrintaas wali hadeerna ismadu waxbay ka qabteen arrintaasna wali waa taagan tahay waxa kamid ah amni xumada ka dhacday jeelka ugu weyn oo aan waligeed la qabsan Boosaaso baa la qabsaday maxaabiis ku dhow baa ku jiray waa lala baxay jeelki waa la jabsaday dhibaato ka dhacday dhaawac ka dhacay magaalada aragtay oo Boosaaso jeelki ku yaalay baa la jabsaday oo la qabsaday oo amni xumada kow ka tahay amni xumada waxa kale oo kow ka sii ah doorashada oo ku tusaysa meesha hadda lagu qabtay konton afraad waa meesha aanu ku asaasnay Puntland lagu asaasay weey amni xumo darteed iyo isku jira baarlamaankii waxa lagu doorashadiisa lagu qabtay konton afraad oo xorada ciidanka konton afraad la yiraahdo Soomaaliya waxa kale lagu qabtay aeroportka lagu qabtay hadda magaalooyinkii waxa looga cararayaa soo amni xumo amni xumadu waxay gaadhay isagii markii u dambeysay madaxweynaha oo dalka xukuumay in la qarxiyo oo la socotaa nibasho iyo dhaawac loo geystay ilaaladiisii waagar taasuna qodobka saddexaad weey qodobka afraad wuxuu ku guul daraystay siyaasiyiintii reer Puntland ka soo jeeday
inuu la shaqeeyo inuu xilka wax ka siiyo inuu waxa weeye Cumar Cabdirashiid baa kamid ah Cabdiweli Maxamed Algaas baa kamid ah Tuurila kamid ah wasiir Jamaal baa kamid ah intii siyaasiyiinta ahayd oo reer Puntland ka soo jeeday inuu wada shaqeyn la yeesho buu ku guuldaray taas oo la eegi karo arrimahaas waxay hadda yani keentay in wax walbaba ma garanaysaa ay arrintii ku socon waayaan mar haddii siyaasiyiintii oo dhan aysan garabkiisa taagnayn haddee waxa weeye xaaladahaas oo dhan uu ku guuldaraystay wixii wax garanayay ama wixii siyaasiyiin ah ama wixii la jooga tala inuu ka qaadan waayo midda shanaad waxay noqonaysaa dhaqankii buu beerdareeyey simadii lama tashado nabadoonadii lama tashado mid waliba gadkiisu ka qaylinayaa wax ixtiraama kama helaanin xubnihii baarlamaan ku qabsaday dhibaato badan baa arrintaa ka dhacday waxa weeye iyaduna wuu beerdareeyey oo waxa weeye dhaqanka hadda ma garanaysaa ninkii uu isina uu shiraado alla ninka fooda ma gelin karin iyo qabiilkiisa gas buu uga leexdaa ninkii uu dhici karana wuu dhacaayo isleeyahay ninkaan qabiil yar weeye taasna Puntland aad maanta caan ugu tahay waxay noqonaysaa xisbiyadii arrintii xisbiyada waa tii la furay 3 degmo waa tii la calaamadiyey 3 degmo oo la calaamadiyey markii lagaga guuleystay oo meesha la isagu hogaaminayay oo madaxweyne ka ahaa meesha la yiraahdo Ayl iyo Qardho iyo Ufayn markii lagaga guuleystay waxba kama jiraan buy waa arrinta wuu kansalay gudoomiyihii guddigu waa iscabtilay guuleed saalax buu ahaa waa ogtiin dhaqanka iyo idaacadaha iyo meel walba uu ka hadlay arrinta mar haddii lagaga guuleystay buu yiri ma soconayso taasna waxa weeye uu ku guuldareystay inuu xisbiyada hirgeliyo faylal buu ku noqday midda kale waxay tahay dhaqaalihii dalka oo midda dhaqaalihii dalka ayuu wuxuu u adeegsaday inuu xildhibaano booba ku soo saaro 48 xildhibaan 6 baa hadda harsan waxaa la soo saaray 32 xildhibaan wuxuu ku soo saaray dhaqaalihii iyo cashuurtii loogu talagalay dalka inay ku bixiso maxaa yeelay anaga musharaxiinta dhaqaalaha iyaga waa wadanin dhaqaali waa naga baxay sidaas daraadeed dadkii isagu uu watay dhaqaala ma aysan wadan isaga ayaa ka bixinayay cashuurta Puntland buu ku bixinayay qof walba intaas oo lacag ah ku baxaysay lacagtii loogu talagalay amniga iyo dalka in lagu sugo wuxuu u adeegsaday inuu dad ku soo saaro xildhibaanaan taasna waa guuldarro Puntland uu ka galay weeye oo ku feel garoobay midda u dambaysa oo aan sheegayaa waxay tahay wuxuu ka dhex shaqeeyey oo socon waayey doorashadii hadda 48 xildhibaan 48 xildhibaan wuxuu ku guuldaraystay inuu beelaha si cadaalad ugu qaybiyo taas oo ay keentay haddeer waxa weeye nin nabadoona lugaha laga jibiyey arrintaas waa taagan tahay dadkii oo dhan baa madaxa iskula jira nabadoon iyo isin waa kala dhinteen beelihii qabiil bay u kala baxeen dhibaatada ugu badan hadda dhexdii garow waa la isku haystaa dadkii oo dhan baa qaylinaya kuwii boosaasood baa qaylinaya kuwii hore garow waa qaylinaya xildhibaan xitaa la dhaawacay baa la doortay isagoo doorashadii socoto gacan xabadi kaga dhacday oo dadkii dhaawacay oo eelkooda iyo simadooda iyo nabadoonada qaylinaya baa garow xitaa laga doortay oo dhacday intaasoo arrimood waxa weeye baa Puntland ka dhacay arrintaa doorashadu dhibaatay keentay uu ku fashilmay inuu meel mariyo si degan siyaasad degan tusaale waxaa la soo qabsan karaa galmudug doorashadii ka dhacday waad ogeyd habeenkii bay gaadhay cadaaladii ka dhacday kuwa guddiga la soo saxiixay weeye waxaa kaloo tusaale mudan xilligii ka horreeyay Cabdiweli Maxamed Cali doorashadii uu ka qabtay Puntland oo tan ku xigtay baa tusaale oo ahaa usoo qabsanaynaa waxaan xasuustaa xilliga xildhibaan baan ahaa waxaa dhacday 11 xubnood intuu qoray Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayuu diyaar raacay oo noo soo gudbiyay anaga baarlamaanka wuxuu yiri doorta inuu ku kartaan keena waxaan xasuustaa kursiba 4 ku tartantay kursi waxa ku tartamay 3 gabdhood Tuurila oo siyaasi weyna oo Puntland iyo Soomaaliya iyo qaramada midoobay laga yaqaan hal cod buu gabar kaga baxsan maalinta waa wax la xusi karo doorashada cadaaladda ka dhacday doorashadaasi doorasho loo sinaa ayay ahayd ayaad leedahay laakiin tan boosaaso ka dhacday waa mid booba oo uusan Saciid Cabdullaahi Dani ku talagalay musharaxiinta amaba meeshaas xildhibaanada ka soo baxaya inuu isagu gacanta ku haysto midda garow ka dhacday waa boob midda garow ka dhacday waa boob midda halka ka dhacday waa boob cid wadatay ma jiro waxa weeye mid walba qofkii watay lacagtii dhaqaalaha Puntland intuu ku baxshay soo saaray doorashada aan barbar dhigayaana waa tii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas qabtay oo Puntland ka qabtay weeye oo anagu aan qabanay weeye oo 48 xildhibaan waxay ku soo baxeen cadaalad nin walba oo waxa weeye codkiisa buu dhiirtay ergooyinkii baa garow la dajiyay hoteelada la dajiyay si cadaalad ay ku soo baxday waxay tahay taas Cabdiweli maanta Puntland ammaan buu ka mudan yahay doorashadii uu ka qabtay Puntland iyo tan maanta barka dhinac dhigo
anigu ragga cabdiweli ka soo horjeeday xilligaa oo waxyaalo kale aan isku haynay laakiin waxaan u qirayaa maanta doorashadii ka dhacday puntland inay yahay tii ugu cadaalada fiicneed oo xilligaa ka dhacda soomaaliya waa gartay maantana ta ka dhacday waxaan oran karaa midda ugu xumeyd oo soomaaliya ka dhacdo weeye gacantaag bay ahayd waxa weeye qof keliya oo cod helay hal qof baa loo gacantaagayay qof walba markuu iridda kasoo galo qofka la socdaa buu lahaa anigu waa iscasilay waa dad laga soo shaqeeyay laba la isoo saaray waxaasoo dhan baa puntland ka dhacday waa gartay dadka inta badan deegaanada puntland ku sugan waxyaabaha siciid cabdullaahi deni markii ay xukuumaddiisa ama dowladdiisa ay dhalatay waxaa ka mid a sicir bararkii lacagtii shilinkii soomaaliga oo qiimo dhacay arrimaha sicir bararka ma ku jirtaa waxyaaba ku fashilmay siciid cabdullaahi deni arrimaha dhaqaalaha waxa weeye bay ku jirtaa doolarku maalintii la doortay wuxuu marayay waa la ogaa lacag soomaaliya shaqaynaysay dalka lacag soomaaliya ogeyd anuu markaasaan xilka ka degay baarlamaanka xilligii aan waxyaala cabdiweli waagi aan xoogaas ku qabanay makiinadaa ka mid ahay makiinad iyo waxaasaa ka mid ahaa laakiin ha ahaatee dhaqaalahu wadanka waa kala socday maantii baa ugu dambeysay shil soomaali la adeegsado maalintii cabdiweli ninka la yihahdo siciid cabdullaahi deni puntland qabsaday baa lacag soomaaliya oo la isticmaala ugu dambeysay taas waxa weeye waa gartay musharax waxaa ka mid ah musharaxiinta si ugu cadcad kuraasta taalla magaalada boosaaso ilaa iyo haddana waxaa ku sugan tahay magaalada boosaaso muqdisho kusoo socotaa guddigii doorashooyinka heer federaal iyo kii xalinta khilaafaadkaba fariinta u dirayso maxay tahay arrintaan u dirayaa waxay tahay anigu haddeer rajo weyn kama qabo arrintaa waxaan uga qabin guddiga khilaafaadka baarlamaankiisu jooga guddigiisu fadhiya muqdisho waa la ogyahay waxa ay ku shaqeeyaan xaaladiisana ay ku sugan yihiin waanu ognahay ninka xukumaana reer puntland weeye halakana wuu yimi cadaalada markii haddii cadaalad uu ka shaqaynayo halakan markuu yimi doorashada markay dhacaysay waa ogaa raggu la sheekaystana wuxuu yihi cadaalad baa ka dhacday meeshaan buu yidhi tanuu taageeray ninka guddoomiyaha xagga ka jooga muuse geelle marka taasaan anigu hadda waxba haddeer fariintaas iyo ra-iisul wasaare haddaan u dirno iyo waxba anaga hadda arrintaas waxba no noqonayso rejiimkaas waa rejiimka siciid cabdullaahi deni rejiimkiisa weeye waxaa xaggana fadhiya halakana fadhiya ra-iisul wasaaruhuna isagu la gurubiyo anagu waanu ogna xaalada uu ku sugan yahay waxaana ka qaban mayaa nin cid dacwootay wax loo qabanayaana ma jiro annaga hadda arrintaas olfil ma ku yihi laakiin waxaanu sheegaynaa inuu siciid cabdullaahi deni ku fashilmay arrimihii ka jiray puntland oo 3 sano waan gartay nin ku fashilmay ama madaxweyne ku fashilmay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa musharaxnimadiisa iyo waxa uu u socdo iyo arrintaas waxa weeye soomaali anagu dhibaato lama doonayno dhibaato annaga isugu filan ninkaas soomaali dhibaatadeeda annagu ma rabno hadda hadhowti annaga hadda maanta isaysana dacala isaysana oo beeli baa isaysta isimadii baa isaysta annagoo dhan baa qaylinayna soomaali qaylan lama rabno arrintaas inay intaa nagaga ekaataan rabnaa puntland arrintaas aysan dhaafin waa gartay fariinta u diraysid shacabka puntland deegaanadaas ku sugan ee xaaladda abaareed iyo sicir bararka iyo dhibaatooyinka amni darrada iyo mushkiladaadka ee kusoo badanaysa fariinta u dambaysa u diraysid maxay tahay gabagabada waxay tahay arrinta tobnaad aan ku darayaa waxay tahay garow iyo puntland waxaa ka jira abaaraa ka jira waxaan kuu sheegayaa magaalada laascaanood iyo magaalada garowe magaalada laascaanood iyo magaalada qardhaynta udhaxaysa iyo magaalada gaalkacyo iyo magaalada qardhaynta udhaxaysa rabadaankan hadda soo socda rabadaankiisi kalaa roob ugu dambeysay dadkii waa ka guureen gobolka bari iyo gobolka sanaag baa dadkii gobolka sool iyo gobolka mudug iyo gobolka nugaal 3daa gobol dadkii deganaa halkaasay jiraan abaar baa halkaa ku heshay 12 biloodna roobuma diin wax laga ogyahayna ma jiro xoogaagii dhaqaalaha hayo cashuurta kasoo xirooday oo lagu bixin lahaa ama biyaha loogu dhaamin lahaa ama lagu kormeeri lahaa ama dawladda kormeeri lahaydna waxay ku mashquulsan tahay sida xildhibaana loo dhici lahaa ama dhibaato kale looga shaqayn lahaa bay ku mashquulsan tahay dadka abaar baa haysa 11 biloodna magaalada garowe aniga geel baa wuxuu ii joogaa geel caanateela garowe meel 11 kilomitir xagga ka jirta ii jooga 11 bilood roob kama diin laascaano iyo gobolka mudug iyo gobolka nugaal iyo gobolka sool 3daa gobol abaartii ku dhacday baa weli haysa wax laga ogyahayna ma jiro lamana kormeero dhaqaalihii tuulooyinka dadka deganaa way barakaceen baabuurtii ka shaqayn jirtay oo dayarta ahayd oo caanaha iyo dadka guri jirtay waxa weeye albaabada u xiran dhaqaale xuma ku dhacday dadka tuulooyinka deganaa iyo baabuurtii ka shaqayn jirtay iyo arrimahaas oo dhan waxaan dirayaa fariinta ugu dambaysaan dirayaa waxay leedahay waxgaradka reer puntland iyo siyaasiyiinta reer puntland iyo
isimada reer Puntland iyo aqoonyahanka reer Puntland kulli fariinta u diraya waxay tahay Puntland maanta in la daba qabto meesha xaaladda ay ku sugan tahay xaalad waxa weeye ay hore u soo madhay maaha galmudug doorashadii ka dhacday way noogeen innaga dadka ugu horeyn jirnay dadka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedadina maanta innaga ugu dambayna arrinta marka waxaan leeyahay aqoonyahanka reer Puntland iyo dadka reer Puntland aynu arrintaas la daba qabto intaas ku soo goynaya